qiyaastii 90 kiiloomitir koonfurta magaalada Kismaayo waxaa ku taala jasiirad yar oo la yiraahdo Juula. Jasiiradan yar waxay ka mid tahay jasiiradaha ugu qadiimsan ee Soomaaliya, da'deeduna lagu qiyaasay in ay gaarayso ilaa 420 sano. waxaa ku nool in ka badan 200 oo qoys. nolol maalmeedkooduna wuxuu si toos ah ugu tiirsan yahay kheyraadka badda. sanadka markuu ahaa 1975 dadka ku nool Juula waxaa loo raray magaalada Kudhaa. sababta ugu weyn ee arrintaas loo sameeyay waxay ahayd in loo fududeeyo isdhexgal bulsho, maadaama dadkaasi ahaayeen Soomaali balse aan aqoon luqadda Soomaaliga. waxay magaaladaasi ku noolaayeen muddo dhan 20 sano, balse markii uu dhacay burburkii dalka waxay badankoodii u qaxeen xeryaha qaxootiga, halkaas oo ay ku jireen muddo 9 sano ah. intaas kadibna markii dib u dejin loo sameeyay waxay ku soo laabteen jasiiradoodii asalka ahayd ee Juula. Changaa hutafudwa kama kawaida mashakani na huliwa naldawa mato. wuxuu leeyahay mirahan magaceeda waxaa weeye dichangaa, macnaha waa la isticmaala waana yani daawo indhaha ugu roon. maanta Juula waa jasiirad qurux badan oo leh xeebo dabiici ah oo soo jiidasho leh. dadkeedu waa dad aad u degan oo soo dhaweyn badan leh, taas oo ka dhigayso meel lagu nasto, lagu sahmiyo, laguna barto dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliyeed. haddii aad raadinayso meel xasiloon, bilic leh oo leh soo dhaweyn diiran, Juula waa halka ugu habboon. soo booqo Juula kuna raaxayso quruxda dabiiciga ah iyo dalxiiska aan la ilaabi karin.